waxaan u malaynayaa biyaha waxay manaafacaad leeyihiin waxay waxtar leeyihiin sida loogu baahan yahay in looga faa'iidaysto intaaba madaxdii iga horeysay ayaa sheegay. nuxurku waxa weeyaan nolosha bani aadamku ama noolaha adduunka ku noolay waxa uu ku nool yahay waa biyo. waxaynu ognahay biyahu manaafacaadka ay leeyihiin haddii wax laga tilmaamo yani qofka bani aadamka jirkiisu 70% waa biyo baa leh. biyaha markuu qofku haraado oo jirkiisu engego waxa qooyaa oo u baahdaa waa biyo. haddii qofku cunto u baahdo cuntada inteeda badan waxaa lagu bislayaa oo lagu kariyaa waa biyo. haddii korku wasakhoobo waxaa lagu nadiifiyaa waa biyo. haddii cibaado loo baahdo waxa waajiba in biyo la helo laysku daahiriyo. dhulku markuu engego wuxuu ku noolaadaa oo nooleeyaa waa biyo. waa ogtihiin xoolaha aynu ku noolahay oo nolosheennu inta badan ku tiirsan tahay haddii aan ilaahay cirka roob uga keenin oo dhulku aanu biyogelin geeda kama soo baxaan. xooluhuna waa dhammaan lahaay. xooluhu hadday dhammaadaan dadkuna innaguna waa dhammaan lahay. marka innagu nolol kale ma haysan. waxa weeyaan markaa uma baahna faahfaahin badan. waxa weeye maadaama noloshu ay biyuhu noloshii yihiin oo iyaga lagu nool yahay dad iyo dunyaba waxa weeye kuwa la haysto in la dhaqaalaysto kuwa dhulka ku jira in lagala soo baxo ilaahayna ku manaysta kuwa ilaahay cirka inoo ka shubo inaynu kaydsanno oo qabsanno oo xiranno. waxaan kusoo horwaya hadalkaydii ma aha wasiirowna ay wax sheegaan dad badan oo aqoon-yahanaa dad badan oo sayntiisa dad badan oo u dhuun daloola waxtarka biyaha halkan fadhiya inaynoo ka faa'iideeyaan ayaa habboon. waxaan kusoo koobayaa dhegaysiga aad dhegaysateen waad ku mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah.